waxaa maanta magaalada Markay xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si rasmi ah ugu soo gabagabay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe iyadoo ay soo xireen maamulka degmada Markay xarunta gobolka Shabeellada Hoose ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Marka Cabdullaahi Nuur Cali Shaacir iyo gudoonka waxbarashada degmada Marka Cabdixakiin Cabdow Siidow ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar kamid ah ardaydii imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad ee sanadkan u fariistay iyagoona sheegay inay rajeynayaan guul fara badan inay ka gaaraan imtixaankan ay toddobaadkan u fariisteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib maanta aad ayaan u faraxsanahay inaan galay imtixaankii dowladeed. Thaniyan waxaan maanta halkaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha waxbarashada iyo dhammaan macallimiinta noo suurtagelisay inaan galno imtixaankan. waxaan kaloo faraxsanahay maanta anigoo ka mid ah ardayda Liibey inaan ka qayb galo imtixaankan waliba si faraxsan oo nooga ka imtixaankeena shalayto maanta waxaan halkaan isugu imaanay si aan ugu qayb galno xalfadda aadana u faraxsanahay waxaan aad iyo aad mahadcelinayaa dhammaan macallimiinta iyo gudoomiyaha waxbarashada waxaan leeyahay mahadsanid عليكم ورحمة الله. أنا اسمي علي حسين عثمان من مدينة مركة جبيل السفلى. أنا متخرج من الصف المتوسط إلى الصف الثانوي والحمد لله بعون الله بعد 30 سنة أول طلاب يتخرجون من الصف المتوسط إلى الصف الثانوي. شكر جزيل لوزارة التربية ومدير الوزارة. ورحمة الله وبركاته. الله مقعي وصابي معلم محمد وحان قصد الاسكول كالمنوبي وحان مهدعنا يا دولية وعبرشة معلمين كمان 6 سنة قدر وحان هلناي دولة امتحان دولة dhanka kale waxaa goobta ka hadlay gudoonka waxbarashada degmada Marka waxa uu mahad gaar u celiyay maamulka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose kaalinta mugole ay ka qaateen sidii imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe uu ugu soo rogeli lahaa magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaanada hoos yimaada. waxaa mahad u sugnaatay Alleena abuuray oo noo soo rogeliyay in intaan arday imtixaanka ka qayb galaan ama si imtixaankii si nabad uu nagu dhaco maanta imtixaanka waxa ku jiray ardayda kaliya kuma jirin anaga imtixaanka ku jirnay in imtixaankii lagu guuleysan doono in kale ciidankii waardeyna wuxuu ku jiray imtixaan dawladdu waxay ku jirtay imtixaan maamulka degmadu wuxuu ku jiray imtixaan kulli waxa aaminsanahay inaan ka baasnay alxamdulillah oo samaan uu ku dhamaaday imtixaankii caadi u dhamaaday haddana waxaan rajaynaynaa waxaan mahad u celinayaa gudoomiyaha degmada kan gobolka dhammaan bahda waxbarashada ilaa heer wasiir madaxweynaha Koonfur Galbeed kan Soomaaliya federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan oo noo suurageliyay inay maanta intaas arday midoobaan oo hal iskool noqdaan waxaan rajaynayaa ardayda dardaaran aan siinaa inay maanta wixii ka dambeeyo ardayda degmada Marka ay mid yihiin ay walaalo yihiin oo hal yihiin ay hal imtixaan wada galayaan hal manhaj ay leeyihiin hal go'aan ay leeyihiin. gabagabadii waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Marka Cabdullaahi Nuur Cali Shaacir oo u mahad celiyay gudoonka waxbarashada degmada Marka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u soo abaabushay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe fasalka 8aad isagoona sheegay in muddo 30 sano kadib magaalada Marka gudaheeda lagu qabto imtixaan dowladeed isla markaana ka maamul ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin. waxaan leeyahay macallimiinta ama iskuullada waxaan leeyahay iskuul la dhigi karo 6 bilood ma jiro waa in ilaa marka dowladda ay jidaysay in la qaato waxay ku baxayeen 1 sano arday cunug saqiir ah in lagu marhawaabiyo 6 bilood wax kugu baraa waa ku baasaa la yiraahdo dugsi sareyaalka dugsaraha way kala bixinayaan qaar waxay ku bixiyaan 3 sano qaarna waxay ku bixiyaan 4 sano dawladdu waxay qaadataa 4 sano waxaana qaadan doonaa 4 sano 3 sano maya waxaan kala leeyahay idinkoo bahda waxbarashada ee degmada Marka waxaad tihiin walaalo waa hal ma tihiin qabiil ma tihiin siyaasad waxaad tihiin waxbarashadaas oo ah ama ha noqoto qofka bareefad goonna ha u lahaado ama macnaha waxa aad baratay maxaa la yiraahdaa mid dawladeed ha ahaado intaas oo tahay laakiin waxaad tihiin waxbarashadaas oo ah hal waay laba ma ahan dadweynaha ardayda Soomaaliyeed oo naqa doono madaxweyne gudoomiye baarlamaan ra'iisul wasaare naqa doonaan iyo wasiiro iyo maamulayaal iyo agaasimo ayaad wax baro haysiin marka maadaama aad baraysiin ma ahan in hal waji waxaad hoos tagaysiin waxbarashada waxay hoos tagtaa dowladda
maamulka koonfur galbeed wasaaradda waxbarashada iyo dowladda dhexe Soomaaliya wasaaradda waxbarashada waxa ka codsanaynaa manhajkii dowladeed ee saxda ahay ee lagu dhigi jiray ardayda wax lagu bari jiray inaan helno oo dhameystiran sidii aan u helno waxbarashada aan u hagaajino marka waxaan rabaa imtixaankii eedadka ahaaye ee imtixaankii aan galnay oo saddexda noo socday asbuuca noo socday waa noo xiran yahay sidii nabadgelyo nagu soo dhammaaday oo wanaagsan oo sharaf leh imtixaan ma bixin qaylo ma dhicin wax ma dhin bilaayo ma dhicin wuxuu ku soo dhammaaday wanaag wayna noo xiran yahay macallimiintii waa mahadsan yihiin maxaa la yidhaahdaa maamulayaalku waa mahadsan yihiin intii korjoog tahay way mahadsan yihiin imtixaanaad korjoog u ahay way mahadsan yihiin guddoonka waxbarashada waa mahadsan yahay guddoomiyaha degmada kulli guud ahaan inta aan wakiilka ka ahay maanta imtixaanka waa inoo xiran yahay dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed waxaan ka sugaynaa in manhajkii dowladeed oo saxda ahay iyo nidaamkii waxbarashada in Aweys Moomin Xasan Aweys oo ka raadiyay telefishinka dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada Markaa